magacaygu waa Ismaaciil wax soo dhawaada waxaan soo dhaweynayaa qof qiimo leh Fadxiye Cabsiye oo ah qof sheekayahan ah runtii afka qalaad marka lagu sheegana producer ah oo ugu yaraan 3 filin soo saartay kuwa kalena ku jirta oo afka qalaad ku hadlaya af Ingiriisiga wadankeeda Mareykanka joogto sidoo kale buugani ma aha buugii koobaad ee qortay af Soomaaliga marka la eego waa buugii koobaad laakiin buug ka horeeyay baa jiro fiction isaguna oo af Ingiriisi ku qoran marka waxa aan doonayaa idinka oo aamusan fadlan iyadana ixtiraamayna inay la soo dhaweysaan Fadxiye Cabsiye si aynu wada sheekaysano lurkii cishqigan la liitahayo la liicliicay laqan yaadiisii laylay والليل كوديراي لاي لاي codku wuu iga xidhan yahay markaan daalo codkaan ka daalaa waa waxa ugu horeeyaan ka daalo markaan raalli baad iga ahaanaysaa laakiin waan isku dayayaa intaan isku dayi karo inaan bal wixii aan xusuusto wixii uu fanaanku ka tago ayaad qaadi doontaa soo ma sax insha Allah waa dadaalaynaa soo dhawow Fadxiye Fadxiye marti uma aha bandhiga buugaagta Hargeysa kaliya sidoo kale waxa ay marti aan kumeel gaar aan iraahdo waayo marti uma noqon karto dalkeedii way joogtaa magaalada Hargeysa horta waxaan doonayaa Fadxiye inaan ku weydiiyo Hargeysa maxaad ku aragtay intaad joogtay imika bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in intaasoo dad ahi ay halkan joogaan ismaan lahayn run ahaantii sidaan moodayay iyo siday noqotay waa laba shay oo aad iyo aad u kala fog alla mahadii waxa weeyaan in aan joogo dalkaygii Hargeysa waa meel cajiiba wax badan baa isbarbar cararaya Ismaaciilow mar waan xanaaqaa markaan wadooyinka marayo aan dhaqaaqi waayo laga xoogo wadadii marna waan farxaayo markaan dadka arko waan farxaa muxubada iyo kalgacalka iyo how advance ay dhalinyaradu waliba yihiin mar waan qoslaayo dee waa dhaqan iyo ummad faniya baynu nahay moogta marka wax badan baa isbarbar cararaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay I am so honored to be with you here tonight thank you so much and to be especially with you Ismaaciilo thank you aad baad mahadsantahay Fadxiye anaguna aad baan ugu faraxsanahay runtii haddaad la yaabto dhawaqa xagga daba ka baxaya waa soo dhaweyntaada wax kale ma aha qaybta xanaaqa ee Hargeysa waxaan aniguba la qabsaday imika awal hore waxaan moodi jiray in dadku marka ay wadada isugu yimaadaan isku xanaaqaan ay qayliyaan in dagaal ku xigo Hargeysa waa meesha ugu bacbacda badan haddana gacan la isma saaro it's all good fun wallahi alazim sida aad moodaysa inay isu soo degayaano ma garanaysaa la isu karbaashiyo ayuun baad arkaysaa iyaga qoslayo qadada balamaya samir baa lagu nool yahay samir ma sha Allah marka inaad taa la qabsato ayaa rajeynaya iyada lafteeda soo dhawow thank you mahadsanid waxaan runtii aynu caawa halkan isugu nimid marka Fadxiye laga yimaado waxa weeyaan wax soo saarkeeda caawa gaar ahaan buugga mahadho runtii wuxuu ka hadlayaa mowduuc aad iyo aad u qiimo badan qof kasta oo halkan fadhiya amaba ka maqan oo daawanayana saameyn gaara ku leh waxa uu aad u dul istaagayaa nolosha dhabta ah ee maalin walba dhacda ha u qornaato maanta si mala awaala ama fiction ah laakiin macnaheedu ma aha ma dhacdo iyada oo sidan weliba ka foolxun ayaa dhacdooyin dhaba aynu ku haynaa in diiwaanka uu gala buugani oo dhacdadaasi uu qof waliba gurigiisa u qaato oo uu akhristo oo wax ka fahmo faquuqa amaba takoorka lagu hayo dad inagoo kale waa inaga uun isla inaguunba isku hayna waliba la odhan maayo inagoo kale waayo inagoo kale waxaa la idhaahdaa dad aydan ma garanaysaa waxyaabo badan wadaagin baa la idhaha inagoo kale waa inagii uun la kala faquuqayo laysu diidayo inay isguursadaan oo si cad loo leeyahay isma geydaan laysu ma garanaysaa waxyaabo badan lagu takooro bulshada dhexdeeda buugani sheeko noocaas buu ku saabsan yahay waxa su'aasha u horeysan doonayo inaan weydiiyo Fadxiye waxa weeyaan maxaa kugu dhaliyay fikirka mowduucan qiimaha leh adiga markii hore
aad iyo aad baad umahadsantahay ismaaciilow waa su-aal wanaagsan oo runtii qiimo badan oo lagu bilaabo arrintan la dagaalanka takoorka ama haybsooca runtii waa mid aan weligay ku jiray walow dadku ay arkeen un dee markaan social mediaha soo galay aan bilaabay inaan ka hadlo haddana anigoo yar oo waxaan garanayaa ilmo yara oo dee waxbaad maqmaqlaysaa guryaheena waxaad maqmaqlaysaa dee waynu ognahay waxaynu maqmaqallo for being honest haddaynu si daacada isugu warranno marka waan yaabi jiray dee dadkan laga hadlaya maxay ahaayeen markaad ilmo yar tahayna way adag tahay dee inaad fahanto waxaad doonaysaa si yaroo simbula dee in lagugu sharxo waxaan laga hadlayo dadkan laga hadlayo marka weligayba waan liqi waayey arrintaa iyada ah waxyaabaha igu kalifayna inaan anigoo yar oo 14 jira ka soo cararo dalkaygii hooyo oo aan ka haajiro run ahaantii dad badan qaxoonti bay kaga soo carareen dhulkii laakiin anigu waxyaabaha aan uga soo haajiray waxaa ka mid ah inaan ka fogaado meel aan ka maqlayo faquuq iyo takoor iyo sida aynu isula macaamilo ee innaga oo dad wada dhashaya dad isku mida ah haddana there is a serious lack of empathy wax la yidhaahdo nacam inaynu dareenno dareenka ah qof walba oo horta ilaahay abuuray iska badaa qof soomaalinimo kula wadaaga qof dhaqan iyo diin iyo wax walba kula wadaaga iska badaaya laakiin qof kasta oo bini aadan oo ilaahay abuuray horta inta aad adigu xaqa u leedahay inuu isna xaq u leeyahay inuu jecel yahay isba sida aad adigu jeceshahay in lagula dhaqmo marka way igu adkayd in aan arko hadii jeer waxaan maqli jiray qof waliba intiisuunba u muuqata dhibaatadiisa u muuqata laakiin waxaynu diidnay we refuse waxaynu diidnay inaynu qof kale xanuunkiisa iyo dhibtiisa aynu dareenno waana ta igu kaliftay anigoo yar inaan jeclaado inaan noqdo dadka sheekooyinka sheega waayo ayeeyadaybaa alla yaa arxamu raaximiin wiila xaaji samatar culujoog ayeeyaday ayaa waxay ahayd qof sheekayahanada markaa waxaan ahaa mid yaroo buuranoo oo timo badanoo waanan dhidid badnaa had iyo jeer injirtuna igama bixi jirinba marka ayeeyaday saaxiib baanu hayno dee dhaqan carruurta waxbaa la siiyaa cuntaa la siiyaa waxay xidhaanna waa la siiyaa waxaad u ooyeysiiyo waxaad tabanayso cidina ku weydiin mayso laakiin aniga iyadu saaxiib baanu hayno way ii sheekayn jirtay oo dhabteeda intay igu jiifiso ayay ii qaadi jirtay hawelwelin waxbaan ku ogahay wiiga dabadiise iyo waxbaan ka garanayaa markaan ooyaan ciishoodo bay odhan jirtay waqtigay hayeejadamiyow kuma wareersheene walal kuma idhaahdeen intaan wiiqa soo dhigoe markaas injirta iga dili jirtay ilmadana iga masixi jirtay marka waxay iiga sheekayn jirtay habar jecliyo dhulbahanta iska kay dhalay of all people marka ayeeyadayna waa dhulbahante marka waxay iiga sheekayn jirtay ayeeyaday anigii aabbaha isku reerun baan dhalay hooyadayna isla reerkaasun baan dhalay marka waxay odhan jirtay ayeeyo waxay iga sheekayn jirtay markaan reeruhu isku duulaan dee maaragtay markaasay ayeeyada sheekayahanad cajiiba bay ahayd oo gacanta intay qabato ayay igeyn jirtay kobtii bartii la isku dilay markaasaa waxaan dareemi jiray anigoo ooyaya baan isarki jirayoo oo carruurtii agoonta ahayd ee aabbahood la dilay gabadhii maaragtay ninkeeda saygeeda laga dilay dadkii ehelka ahaa ee isgumaaday wixii anigoo dareemaya baan isarki jiray oo ilmadu labadaa iga da'ayso markaasaan goor hore waxaan dareemay alla ilaha sida Soomaalidu ay isku baran karto ay isku jeclaan karto ila dad film sameeyana manhine wax weeye inagoo adoo sheekayahan noqdo qof kasta sida ayayada gacanta ku qabatay ee ku geysay meelihii dagaalada sokoye ka dhaceen aad adiguna gacanta u qabatid oo u geysid kobta marka ma hadho in badan bay soo socotay laakiin waxa ultimately igu kalifay inaan sheekadan ka sheekeeyo marka aan ka hadlo dhibaatooyinka walaalahay gabooye ayaa waxa lay soo qoraa
oo adiguba maad guursatid single mother baa tahay markaasay qaar kale waxay soo qoraan dee gabdhahaaga sii marka waan yaabayoo marmar waxaan israadaa indhaha iyo halkaa intuu farta kaa geliyo kaa soo rida ciil awgii because waxa weeyaan waa yahay wiilka gabooye haddaan guursado marka hore horta soo maaha inaan rumaysnahay inaan wax dheerahay waa inaad rumaysan tahay dee horta inaad wax dheerto ay jirto waxaad ka meedhaysid ood ka xoraynaysid gabadhaada siina dee horta gabdhahaygu waxa weeyaan ikhtiyaar bay leeyihiin iyagaa ilow may Chinese ii keenaan iska badaa Soomaaliyo marka had iyo jeer Chinese Muslima marka waxaan isarki jiray waxaan dhahdaa dhageysta marka midba wuxuu ii soo qoray dee maad gabdhahaagaba siisto waxaan ku gabdhahaygu horta ikhtiyaar bay leeyihiin ciday doonayaan iyagaa guursanaya hase ahaatee guurku waa dooq maalin walbana dadku markay isbartaan ay isdhex galaan way isjeclaadaan laakiin dadkii iyo dhaqankii baan daynaynin marka dhaqankan xun ee walaalkaa dabray ee walaashaa liiday ee dadkii bulshadii 75% baan odhan karaa xaqiray dee walaal dhaqan maaha aynu inta xun in badanoo xun baa jirtee aynu ka gudubno marka taasay igu kaliftay inaan sheeko jacayl ka qoro arrintaa waan soo noqon doonaa buugga iyo waliba dadka ku jira ay milge iyo bila ka mid yihiin atooraha iyo arbaha iyo wala oran jiray Soomaa iyo atrishadu ay ku jiraan laakiin sheekadani maaha tii u horeysay ee musalsal ahaydeed waday waxa kamid ahayd sheeko la oran jiray khilaaf maxaa tanna buug aad uga dhigtay kuwaasna aanad wali uga dhigin waa su'aal wanaagsan khilaaf hargeysayba ku salaysan tahay oo iyo agagaarkeeda gabiley isla area-dan waana sheeko dhowr iyo 10 sheeko musalsal baan sameeyay oo aan kaga sheekeeyay YouTube khilaaf waliba waa aad bay xataa uga sii xiiso badnayd markii hore bilowgii markaan bilaabay mahadho hase ahaatee waxa jira one of the books aniga saameynta ugu weyn ugu yeeshay waa book la yiraahdo The Human Stain oo uu qoray nin la yiraahdo Philip Roth waana sheeko run ah oo dhacday oo maaragtay wadanka Mareykanka ka dhacday marka maadaama had iyo jeer la igu soo celceliyo arrintaa adiguba maad guursatid waxaan rabay inaan dadka tuso bal iska badaa wiil gabooye ah sheekooyin badan baan maqlaayo dee inama gabooyo ay gabdha isjeclaadeen aan gabooye ahayn oo dee laga soo maaragtay xoogay oo iyagii la laayay oo laakiin bal nin half Maraykana waa aabihii baa Soomaali ah aabihii unbuu Soomaalinimo ka soo galaa hooyadii waa Maraykanad madow ayadiina waa gabadh cad oo waliba the most handsome man in the world beautiful nin aad iyo aad u qurux badan 28 years old adduunka hanka iyo haybadda Ilaahay siiyay halkii ugu sarreysay jooga oo Maraykan dee halkii ugu sarreysayba jooga oo aan Soomaali inay isaga u baahato mooyaane aan isagu u baahnayn iyo gabadh isagu iyaduna dhigeeda laba qof oo aan Soomaalinimada jecel uun dee identity waad garanaysaan dadkeena yareer haddaad dibadaha kuweena jooga dee dibadaad ka timiye identity yaa asalnimadu waa very very important intaa waa laga hadlaa intaa waa la raadiyaa oo haddana mahadho ay ka hadhi weyday The Human Stain qabiilkii iyo dhaqankeena intii xumayd ay weli daba socoto ay hadhi weyday markaan sheekadii soo bandhigay ayaa run ahaantii dad badan baa ila soo xidhiidhay oo qoraayo ah oo igu yidhi Fadxiyaay mahmaha baa jirtay mahmaad way kala maqantay wixii la qoraa qoro mahare waka sheekada buug ka qor marka ismaan lahayn buug af Soomaali aad ku qorto waayo af Soomaaligu inkastoo hadalkaygu ii fudud yahay qoridu easy maaha marka sidaas ay u kaliftay inaan buug ka dhigo because waxaan arkay 2020 there was a shift going on maaragtay Black Lives Matter change-kii waddankayaga ka dhacayay oo adduunka cid kasta oo la dhibaataynayay sidii wave oo kale ay dabadeetana iyaguna maaragtay u daba qabsadeen dabada u qabsadeen oo qof waliba dhibaatadiisii soo bandhigtay marka waqti perfect bay ku soo beegantay taas ay u kaliftay inaan ka hormariyo sheekooyinkii kale oo dhan kuwa laftooda waan soo wadaa iyagoo bugaaga markay Fadxiya leedahay akhriska ama waxaan jeedaa qoraalka iskuma wacnin buuggana taas beenayn doona waad arki doontaan runtii si cajiib ah buu qortay sheekada waynu u iman doonaa laakiin buuggu waa buug haddana isagoo ka hadlaya mawduuca sida inoogu magaranaysaa bulshada dhexdeeda aad ugu weyn
qiimana leh haddana habka uu u qoran yahay iyo waa buug romantiga baa la odhan karaa buug romantiga bay fadxiya qortay fadxiya markaan leeyahay romantic waxaan ku salaynayaa tusaale ahaan markay milgo iyo is arkayaan iyo bile oo sheekada ku wada jira buugga is araggooda koowaad bay ka raacaysaa jacaylku uu ka raacaya oo dareenku ka raacaya waxaad oran jirtay markaad qof isha ku dhufatay eed ka jiisatay tiraahdo waxaad aragtay maad aragtay aad ku noqoto oraahda adigaa lahaa maxaad sawiraysay halkaa dee horta waxaa la yidhi qofka wax qoraa qof waliba wuxuu yaqaanuu wax ka qoraa ma aragtay a writer writes what they know marka waxa anigaa sidaasa haddaanan qacda hore ku caashiqin way adag tahay sida uu iigu soo duxaa dhowrkii jeer aan wax caashiqayba sidaas un bay ahayd marka xagga aniga iska hadlayay ma garatay marka milgo dee kaarakterro badan oo anigaabaa ku jira ama dabeecado badan oo aniga markaa milgo markii ugu horreysay xaflad aroos bay timiyo markaasay way soo yaro habsaantay oo gudahay gelaysaayo way fadhiisanaysaayo markay saa u fadhiisato unbay inaan halkaas soo gangaaman arkaysaayo aad iyo aad u haybad badan oo qurux badan oo markaasay indhihiiba isagii bay ku ilaawaysaa moogtahay dhowr jeer bay dee isruxaysaayo markaasay haddana markaa wuu qabsaday waa qacdaan ku arkaan isqoonsaday bal qabso waaban kuu qandhanaya miyay odhan jirtay magool marka halkaa laakiin waxaan idhi heese yararoo gaagaaban baa ku jira buugga kulligan waad ogtihiinoo qof baynu qalbiga ku sidanaa markay inoogu horeysa usually markay inoogu horeysa qaar baa dhowr qof ku sitay wado marka qofkii waxay aragtay dee qofkii ay weligeed qalbiga ku sidatay oo dee isagiioo run ah inta badan ma helo dee qofkii isagiioo run halkaa taagan moogtahay marka waxay igu soo dhacday heestii sahre axmed ay qaadi jirtay odhan jirtay codkaygana dee hadda hay duubinoo hadha odhanina tii waa tan oyday yaa codku iga xun yahay laakiin waad ogtihiin inaan intaa ka cod fiicanahay iminkaba marka waxay heestii ahayd markii loo walqalaye waawi la yidhiba ana lay waxyoodo ii waran jacaylkuye intaasaan ku daynaya codka iga xun يا سلام sidaasuu codkuna ka xun yihin weliba waa hagaag su-aaluhu dhankaygun ka socon maayaane saasoo dhan danaysta umayhiye waan idiin furaya idinkana waad soo gaadhayaa laakiin waxaan ku weydiinayaa fadxiye ay marka buuggan akhristuhu akhriyo maxaad doonaysaa inuu kala baxo akhristuhu muxuu doonayaa inuu kala baxo akhristuhu waxaan isleeyahay wuxuu kala baxayaa mahadho horta bini aadanku sidiisaba ilaahay bini aadanku u abuuray horta inta aynu iskaga mid ka nahay baa badan xataa iska badaa qof soomaaliyaho soomaalidu hadda maalmihii dhaweyd aan soo socday waan yaro welwelay waxaan islahaa faaraxyadii baa mid feedh kugu dhufan doona ya wallahi waan yaro baqay waxaan islahaa kuwii kuu soo qori jiray dhaya mid baa wuxuu ii soo qoray hargeysaa tegaysaa waarya ninkii muusow gabadhaasi liinta jeelka ha ku cabto marka waan yaro baqay runta haddaan yaro sheego haddana waxa weeyaan wax walbaynu isu soo qorno markaynu is aragno muxubo iyo kalgacal iyo marmar baan ooyaa moogtahay wallahi ilma isku kay soo taagtaa the amount of love kalgacalka ay tuseen dhallinyaradu weliba hablaha dee waan ka filanayay laakiin inamada markaa allaha idin barakeeyo laakiinse sideedaba bini aadanka waxaynu iskaga mid ka nahay baa badan xataa dadka aan muslimiinta ahayn ee ajnabiga project waxaan sameeyey program la yidhaahdo eat with muslims oo markii ninkii cawlaaya waddanka iyaga haystay waan necbahay magaciisa inaan dhahdee oo dadkii nagu kaceen cunsurinimadii badatay ayaa waxaan sameeyey organization la yidhaahdo eat with muslims oo aan ka waday qofkaa jid ma la martay jidiinse ma la cuntay markaasaa cashooyin baanu qabanaayo dadkaanu isugu yeedhnaayo ummaddiiba waa nagu soo jabtayba wuxuu noqday the most amazing program meel kastuu ka dhacay xataa
warbaahinta meel walba waa nalaga soo daayay dadkiioo waxaanu aragnay gaajo u qaba inay muslimiinta la kulmaan meelo cidla ah inta nalagala soo hadlo small town America aan weligood iska daa musline madow arag ayaa nala soo xidhiidho waxay yidhahdaan hey waxaanu doonaynaa inaanu muslimiin baranee haddaanu soo tigidhada annagu bixinno ma noo keenaysaa muslimiin yeah I mean dadkana waxaa ka dhaadhacsan maya gaalada wayna necab tahay oo reer hebel bayna necab oo cadow baynu leenahay oo kana waxa aynu khiyaali shubaynaa waa inta aynaan is arag waa inta aynaan isbaran waa inta aynaan sheekaysan wax walba oo aynu isleenahay waad ku kala duwan tihiin minidka aynu sheekaysano ee aynu wada hadallo ayaa gidaarkaasi dumaa disappeara marka waxaan isleeyahay waxay ka qaadan karayaan alreadyna ay ka qaateen dad badan oo sheekada dhageystay ay ka qaateen dhalinyaro badan oo ila soo xidhiidhay in khiyaali iyo gidaar maaragtay kala qaybsanaan aan la arkayn xadhig aan la arkayn iyo xeer aan la aqooni uu qalbiga iyo maskaxda ka qabsaday iyo huuhaa oo dadku ay markay buugga weliba akhristaan ee bilaha haybadiisa iyo quruxdiisa ay arkaan ee maalin walba aynu ognahay oo inamo gabooye ah oo maasha allah cajiib oo aynu aragno qurqurux badan iyo hablo cajiiba sheekooyin kale ku sii jiro oo weliba sheekaba sheekay ku sii dhiibaysaayo isla mahadhadaasuunahe ay yidhaahdaan ay wax badan isweydiiyaan qofka bini'aadanka ahi waa lagama maarmaan in aanu odhanin aabbahay baa samayn jiray awoowayaashay baa samayn jiray adeeraday baa samayn jiray waa dhaqane maxaynu samaynaa no dhaqanka wixii xun waa in laga saaraa dhaqanka walaalkaa ciilay waa inaanad adigu ku faraxsanaan because maalin walbaanu waddamadan joogno nidhahnaa white privilege I'm sure we use that all the time waddamadan joogno iyadoo sida naloola dhaqmaa run ahaantii ay ka wanaagsan tahay sida aynu walaalaheenna gabooye ula dhaqanno iyo dadka maaragtay qabiilada anigu laga wax kalaan dhahdo garmay laga tirada baday waxaan ka wadaa dee muuqashada marka waa in qabiilada laga gardaran yahay laga gardaran yahay that's a good one I love that thank you cidima tiro koobine qabiilada laga gardaran yahay marka waa inaynu isweydiinaa maxaa aniga iga galay wixii aabbahay samayn jiray adeeraday samayn jireen ehelkaygu samayn jireen hadday xaqdarro iyo cuqubo ahayd dee anigu waxa la gaadhay waqtigii anigu aan dabarkaa goyn lahaa yaa waayo qof walbaaba inta aad adigu xaqa u leedahay buu u leeyahay haddii aad leedahay qof islaama baa nahay oo ilaahay jecel oo ilaahay ixtiraamaya oo ilaahay ka baqaya waa in aad xaqdarrada ka fogaataa waa inaanad ka aamusin waa inaad ka gilgilataa laakiin inta aad adigoo leh oo maxay iga galay waa reer hebele ma haddaanay aniga haddaanay igu socon ama aniga haddaan waxba la yeelin inta aad sidaa u fekeraysid diintaaduna complete maaha runta aynu isu sheegno yaa diintaaduna complete maaha qofnimadaaduna ma dhamma akhlaaqdaada iyo bini'aadanimadaada midna ma dhamma marka waa inaynu isweydiinaa xaqdarradan iyo cuqubadan miyaynu sii wadaynaa weligeen mise waxa la gaadhay waqtigii aynu gidaarkaa dumin lahayn I think waxaan hubaa qofkii mahadha akhristaa inuu ka gilgilan doono oo xeerkaa aan la arkaynin uu finally isaguna erase garayn doono masaxi doono insha allah biidni illaahi kariim marka ay kolba dhinac baynu eegaynaa anuu dhankii jacaylkan ku yar noqonaya haddana fadxiyay marka ay milge iyo bile ay magaalooyinka Seattle iyo meelaha dhex marayaan ee ay wadooyinka waaweyn dhex socdaan shimbiruhu heesayaan maxaad uga jeedaa horta waa very romantic story waxyaabaha kale laga baranayaan waxaan isleeyahay inamada dhalinyarada ahi dee romancekaad ka baranaysaan yaa jacaylkan waayo habluhu kama baranayaan miya hablaha wuuba nagu talaalan yahay romancekuya annaga DNA-da iyadu ku jiraaye laakiin inamada Soomaaliyeed waxay ka baranayaan raganimadu bal horta sida ay u egtahay ila runta haddaynu isu sheegno eedayaal iyo habaryarayaal waxa badan inta laynagu yidhi raganimadu ma aha sidaan hore u sheegay shay la iska qaato raganimadu waa something you earn waa wax lagu siiyo waa sharaf iyo milgo lagu hubiyo oo aad kasbato marka dee bile waxay ka baranayaan bile iyo milgo oo ay isugu dhacdayoo finally marka aad dareento dee marka hore dee waa qacdaa hore laakiin marka aad isyaro barataan qof baa dee qurux badan oo
maaragtay halkaas soo gangaaman laakiin dee markaad isbarataan maran ya markay isbartaan ee labadiiba dee ay isugu dhacdo ee finally aad dareento ila kuwa garanaya yaa wax jeclaaday weligood qof aan wax jeclaan ma jiro gacmaha hoos wada hayaan wallay ka tay qof aan wax jeclaan ka xishoonina jacaylka dee iska daayo caawo we're being honest daacad baynu isugu waramaynaa caawo ya marka yaa wax jeclaaday si daacada wuxuu jeclaaday gacanta taaga sidii hore way dhaantaa maasha allah mid baan maqlayaa halkaa kale aniguun baa lay jeclaaday anigu jacaylku sidiisaba ma aha haddii lagu jeclaado haddaanad adigu wax jeclaan waxba kaama gelin qofka ku jecel dee maxaa kaa galay markaa finally labaduba habeenkaad waxay dareemayaan dee inay isjecel yihiin waa markaad dareento wallaahi qofkani sida aan aniguba u ahay buu ii yahay ma garat waxay realize garaynayaan inay isjecel yihiin oo markuu bila soo dhigo ila waa gentlemane uu milgo gurigii geeyo aan isdhegaysano jacaylkii ka soo noqda su-aashii way dhammaatay markuu milgo gurigii ku hubsaday elevatorkii la sii raacee albaabkii ay furtay gudaha ku hubsaday iyaduna albaabkii saa ugu tiirsatay saa wadnaha isu qabato ayuu isagiina xagga kale ayuu de markuu elevatorkii usii dhaqaaqo dib usoo eegayaa moogta maya wuxuu markuu ay albaabkii kusii socoto ayuu halkaa ka macsalaameynayaayo markaasuu markay gudaha gasho ayuu dhaqaaqayaa markaasay odhanaya isna dhaqaaqayaa dhabarkuu sii jeedeen kasoonaya hadday soo egto way jecesha sayidna odhanaysaa hadduu isoo eego labadoodii baa markaa labadiiba jeestay moogta markaa markuu soo baxo adhowtay gaadhigiisii soo kaxaysto ayaa dee macaashimbirihii Seattle waa meel aad iyo aad u qurux badan wadda qurux badan baa jirto dhirtu fooda inta isla gasho wuu soo dhex maraya markaasaa macaashimbirihii markaa heestii cumar dhulaaw shidnayde beejka inta dhexun baan ka soo qaatay heese yararoo gaagaaban baa ku jira inta uu odhanayo codkuna way iga xun yahay haddana waan ku celinaya odhanayo inayay faladani galabtii fogayde farxadiyo kalgacalkan ku fadhinayo acnayde hayeeshey fahano quruxdan filayay furayaashii dhiiggii hoy hoy wadnaha soo kumaad fidin soo dumarba foodiyo farmadheera hablaha baan odhanaya anu naaga odhan maayo يا سلام سيدا سعودكم نجحون يهي marka laga tago runtii horta buuggan aan nasiib baan u yeeshay inaan akhriyo isagoo aan soo bixin dad badan oo akhriyayna saameyn buu ku yeeshay anigana runtii aad buu wax iga bedelay dareenkayga laakiin dhanka qoraaga marka la eego laftiisa waxaa la yidhaahdaa marka uu qofka qoraaga uu ku jiro processka wax qorayo waxa uu qorayo laftiisu waxbay ka bedelaan isagu markii uu bilaabay si aanu ahayn marka hore ayuu noqdaa amaba sawir cusub buu ka qaataa markii aad qoraysay buuggan dhamaystirtay saameyn noocee buu adiga kugu yeeshay adiga laftaada wallahi that's funny horta marka dhibaatada ugu weyn I think dadka qoraayada ku dhasha waliba de adiga ku dhaca adaaba iga qorniin badan anigu sheekooyin badan oo gaagaaban baan qorayo aanan wali qaar badan publish garayn laakiin de filmana waan qoraa marka the funny thing waxay tahay characterkii qofkii ilaahay baa wax abuuro wax sameeyay laakiin qofkii aad adigu isku dibariday ayaa run kuula ekaanayo kuula noqonayo qof nool ya markaasaad waxaad arkaysaa adigoo qofkii dee maaragtay haddaad doonto marmarka qaarkood odhanaya maya bila sidaa ma sameeyaan milgo sidaa ma jecla marka waxaan arkaa marar badan dhalinyaro badan oo inamaa ayaa ila soo xidhiidho jacaylka iyo romanceka iyo wax iga weydiiyo markaasaan ku idhahdaa habar yar bila wuxuu samayn lahaa ya anigu waxaan ku arkaa bile
marka haddaad dee bilo doonayso inaad noqoto hadda bilaba ma isagu dhegaystay marka dee bilaa runii noqday ya marka bilana waa qof run ahaantii in badan dheeli tiran oo ay adag tahay qof isagoo kale ah I'm sure way jiraan laakiinse dee dad badan hadday akhristaan waxaan ka baqayaa inay bilow u raadiyaan sidii anigaba igu dhacday beri fadxiyay waxaan u malaynayaa bilo wax badan baad dhex gashatay anaguna milgaan intayda raggii wax ka dhex eegi doonaa baan leeyahay igu celi adri ayaan wax ka dhex raadin doonaa sida aad bilo adigu wax uga dhex aragtay dhowr qof baa ila soo xidhiidhayna maa igu yidhi walaalo mana bari kartaa milgo haddii sheekadii shaqayn weyday milgo iyo bile laakiin dadkiinii mahadho la socday oo waxaad ogaataan buuggu uu ka duwan yahay sidii mahadho ku dhammaatay midda kale milgo qofkii doonayana ragga waxaan leeyahay waxay ka shaqaysaa Microsoft marka waa doonan kartaan iyadana halkaas aad joogtaa good luck waa hagaag inta aanan dadka u furin waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal dadka wax qora Soomaalida ah ama sideedaba ku dhex jira qaybtaasi waxa jira caqabado ka hor yimaada iyo dabcan fursado wanaagsan oo dadka kale aanay lahayn tusaale ahaan wax badan buugaagta Soomaaliga laguma qoro waa la idhaa inta badan oo imka 10 sano u dambeeyay bay aad u badnaayeen sax waxa kamid ah caqabadaha dhanka caqabadahan doonayaan ka hadlee waxa kamid ah distribution ko kale ama qaybinta in buugtaadii ay gaadhaan meelihii aad doonaysay ama halkan ku soo raacaan amaba adduunka oo dhan hadee si fudud ha looga helo oo maanta kale markaa kan lagu soo bandhigo in qofka ee Europe jooga ama Malaysia ama Asia kalaba jooga uu si fudud dalban karo adiga caqabadaas sideed uga dabaalatay ama sideed u waajahday de horta wali buuggiiba in yar baa timi oo run ahaantii muuba wada imanba uu soo socdaa intii yarayda timi waa lagu leefayba markiiba itaa lafteedu waxay ina tusaysaa haddii dee sida wadamadan aanu ka nimi loo eego it would be considered a bestseller soo maaha dabcan maalintii ugu horreysay baa haddii lagu leefay marka laakiinse wuu soo socdaa buugga badankiisii barnaamij weynna waa loo qabanayaa oo speakers imanayaan oo maaragtay lagu si fiican loogu soo bandhigo marka saasaad ku heli doontaan intiina uu ka dhammaaday I'm sure many of you would like to buy it waad jeclaan lahaydeen inaad heshaan oo aan idin saxeexo soo maaha marka anyway aan isu camire marka mahadho by the way wadamada dibadda wuxuu Amazon baa la gelinayaa marka wadamada dibadda tourna waan ku marayaa Europe iyo Mareykan iyo meelo badan ilaa Australia oo marka dadku de online bay ka iibsan karaan oo gurigoodaba loogu geynayaa ariga Soomaalidu degto dhanna waa la geynayaa insha Allah biidnillaahi kariim qorshahaas aan noogu jirtaa meelo badanna waan marayaa haddeer intaan joogo oo ay jigjigi ka mid tahay ilaa iyo Garowe waan tagayaa waxaba suurtagal ah inaanan buug inafaba markaa haynin laakiin mid kale jirto iyadana mahadho siday u badan tahay film bay noqonaysaa insha Allah biidnillaahi kariim waan already dad bay la soo xidhiidhay marka oo ka fikiraya inay investment ku samaystaan as a film taasina waxayna tusaysaa in isbedel cajiiba maxay odhan jireen a paradigm shift ay jirto already oo dadkeeni isbedel is in the air wallahi I can smell it marka in film already lala doonayo anigu kaba hadlin film lala doonayo in meel walba la igala soo hadlayo la doonayo buugga in dhalinyaradii ay kala boobayaan waxaasoo dhan waxayna tusaysaa in isbedel xoog lihi jiro inaynu dhowdhownahay kama walwal qabo mahadho waxaan kaloo jirta mahadho wax allaale wixii proceeds ka soo baxay okay qorshahaas hayga hor dhicin fadxiye aniga arrintaa ku weydiin doonaa waayo arrin cajiiba weeye runtii dib baan u dhiganayaa laakiin marka hore waxaan doonayaa inaan bal dad badan baa halkan soo fadhiyaga laftooda inaan xaggoodana aynu u wareegno onan keligii su'aalaha ka weydiinin idinka ayaan idin furayaa imika 6 su'aalood total ahaan marka la isu geeyo wadarta ayaan idin siin doonaa waxaa idin qaybin doonaa xasan ama cabdiraxmaan kadib waan isu soo noqon doonaa qaybta waan ku soo noqon doonaa dambe soo gaabiya fadlan su'aal aanan weydiinina ha weydiin su'aal aan weydiiye ha weydiinina marka wax cusub weydiiye fadlan
soomaali waan islaamay siiba dhalinyarada aad waxaa farxad laba dhalinyarada meesha fadhida farxyahay kulmiso magacaaga noogu celi waa luul caraweelo waxaa hadlaya codka waxaan u malaynayaa hargeysa nagu wada dhegan iska jooga bay leedahay codkiina caadiga ayaan la maqlin su-aashaydu su-aal maaha waxaan rabaa keliya inaan kuu mahad celiyo waan ogaho laabtaan iskala soconnaa qalbigaan iskala soconnaa laakiin habka aad u qortay buuggan ayaa wuxuu yahay hab dhallinyaradii soo jiidanaysa okay meel kastaan ka nidhaahdaa baradan shift baan rabnaa maskax isbeddeshaan rabnaa aragti isbeddeshaan rabnaa laakiin wuxuu isma beddeli karaan haddaan saamayn lagu yeelanin marka thank you mar kasta iyo meel walbaba waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay luul magacaygu waa farax fariintaan u sidaa waxay tahay qofku kolley markuu dadaal bilaabo dadaalkiisaasi inuu midho dhalayo in kale wuxuu ka eegaa feedbacka bulshadu u soo gudbiyaa marka inan ka mid ah inamo xafiiskayga ka shaqeeya ayaa maanta ii yimi wuxuu igu yidhi goormaa buggii fadxiye cabsiyo lasoo bandhigayaa waan hubaa goobta uu ku sugan yahay marka waxaan ku idhi maanta lasoo bandhigayaa iska jawalka baan u sheegay wuxuu idhi gabadhaasi noloshayda wax aad u weyn bay ka beddeshay waxay bartay macnaha jacaylku yahay waxaan arkay wuxuu intaa ku daray wuxuu yidhi markii hore waxyaabo badan oonan islahayn dumarku way u baahan yihiin ama ixtiraamku heerka uu ka gaadhsiisan yahay sida dumarka loo ixtiraamo ayaan ka bartay buu yidhi marka waxaad iga gaadhsiisaa inaa buuggeeda iman doono shaqadana kasoo fasax qaadan doono dadweynahana ka mid noqon doono ma garanayo inuu dadka fadhiyo yahay iyo inuu kuwa taagan ka mid yahay laakiin fariintaasaan doonay inaan kuu soo gudbiyo dadaalkaagii inuu midho dhalay waxaanan leenahay ku soco waanan ku taageersannahay mid kalena waan kuu soo gudbin lahay oo ah in ragga iyo dumarka markaan ogaadeen dad badan waraystay cidda aad kuu daawatay kuugu xidhan ay yihiin ragga ama faaraxyada sababtoo ah waxaad arkaysaa mid waliba wuxuu la socdaa xalqadaha aniga mahadho maan daawan dadkii hore u daawan jira ama youtube ama meel kale kala socday maan ahayn laakiin iyaga igu soo celiyey xalqadihii oo dhammaystiran inamaan la shaqeeyay iyo inama kale oo aan asxaab nahayba marka waa wax aad u weyn inaad intaasoo isbeddelo keentay waanaad mahadsantihiin waad mahadsan tahay farax weli 6 su'aalood way taagan yihiin bismillaahi raxmaan raxiim marka hore hooyo waan ku salaamayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa inan qiimo badan baa tahay waanan kaaga mahad celinayaa bandhigan aad soo bandhigtay buuggan qiimaha badan leh maxaan ku idhahdaa waa ta koobaade waxaad tidhi waxaad ka warrantay takoorkaad ka warrantay takoorku waxa weeyaan caado xun oo hore inoola soo xidhiidhay waxaynu inaku keennay maaha waa waxa wowyaasheen aynu ka soo gaadhnay laakiin aynu ku habboon tahay inaynu iminka ka takhallusno oo sidaa aad tidhi aynu yeello sidaa aad tidhi taasi waa taa oo meel looga soo wada jeesto haddaanay dhallinyartu dhaqankaa foosha xun leh ee ina daashaday ee dib inoo dhigay ee maskaxdeennii ku cabbay ma aanay ka takhallusin waxa weeyaan waa dhibaata weeyaan oo inaynu dhaqankaa dabada sii haysanaa ma fiicna ta labaad milgo iyo bile milge iyo bile sheekadan milge iyo bile ee aad soo bandhigtay iyadana aad iyo aad baan u taageersanahay labada maadaba aad iyo aad baan hooyo u taageersanahay dee inay taana tixgeliyaanoo habluhuna aanay horta wada bilo dadku wada biloo miidhan maaha habluhuna wada milgoo miidhan maaha marka waa inaanay habluhuna wada bilo oo miidhan raadinin habluhu ragguna waa inaanay wada milgoo miidhan raadinin in arrimaha la isu dheeli tiro maxaan ku idhahdaayay jacaylkuna waa halkiisa hambalyo inan qiimo badan baa السلام على من اتبع الهدى هذا الاتري بان انو دبا سocdaayo ah gaaladu inama necba gaalada in badan oo ina necb baa jirta iyo in badan oo de ma ogin horta laakiin de intay necb baa badan halka waxaan ku leeyahay halka dib nagaga noqo anigu waxaan ku weydiinayaa horta anigu waxaan ahay qoladan iminka nasiibka daranaya uu buugu ka dhamaaday bal buugaasi goortu soo intiisa kala ay imanayso aanu niyadda iskaga sii haysana haatane bal noo sii sheeg aad baan ku hambaliyeynayaa waan mahadsantahay السلام عليكم كل شيء سلامي
su-aalaa laynaga doonayay runtii laakiin qof walba dee Soomaali baynu nahay afkaarteenaynu wada dhiibanay intii ma hadda tiri iyo intii afkaarta dhiibatayba waad mahadsantihiin laakiin aanu su'aal Fadxiya ما شاء الله صاحبتي the one and only لما إلاوان وانك سلامي قرابة تهي بوك بعد نوصل بندكتي وحالة يابا إن ضد بدنو وعيال يربا إني كنت تني دود إني وح قران وحن شعلنا هنا كويديو يقولنا إكفاء إذا يعني تبت أظن مرتي قرال كان يعني دوينها ضد قرايا دي متدار أي موقتها أي جليان انتو كوكو قاتي ما هذا إنه كصبحه maxaa ku yiraahdaa baaritaanaha aad gashay magaalooyin iyo cimilooyin iyo dabeecadooyin iyo waxyaabo badan baad moogtay ka hadlaysaa marka u faa'iideey bal mujtamaca uu ku jiro hal abuurku yani waxa dhibaato aad kala kulantay ama baaridiisa ama maarta qoridiisa wax noogala yar waraag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsan tahay waa qoraageennii weynaa ee Saynab Galool yaana inoo dhuumanin السلام عليكم صراحة سؤال دوني أنا كويديو ولا كويدية لكن one thing من دوني هذا I love you and we love you all. أنا هالسؤال بنقبع سؤال شاسنو حويين أبلا الصومالي وحي بقول كيف السجاشن أمسين إن ماذا الصومالي روماتيك ما كان ماذا سنو نقول بدنت مركا واحد سؤال شنو كويدين يا وحويين bal si daaragtay waxaad noogu qeexdaa romantic wuxuu yahay waayo ina kasta waxay magacaygu waa Cabdicasiis Ibrahim Xariir waxaan si fiican uga mid ahay ardayda Fadhiya Cabsiye laakiin caawa waxaan ku hadlayaa afka faaraxyada si guud faaraxyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ragga iyo dumarku haddii xisaab la iskugu noqdo hadda targaabi xuquuq ka maqan tahay baan nagu taaganahay tusaale ahaan marka gabadha la guursanayo ama la mehersanayo ama marka inantu yar tahay waxay mas'uuliyaddu saaran tahay aabaheed oo raga gabadhu marka la guursado waxay mas'uuliyaddu ku wareegtaa ninkeeda oo raga baan simbari leenahay sidoo kale waxaan odhan karnaa meherka ninka bixiya hawl kasta oo aqalka la dhisayo ku waxa weeye aadan ninkay mas'uuliyaddiisa saaran tahay oo waxa weeye dhakada haddana waxa la sameeyaa mutual interest dantu waa dan loo siman yahay reer iyo aqal iyo ubad baa la wada doonaya okay marka halka haddaynu si yaro simple logic u eegno ragga xuquuq waa ka maqan taasi waa taas su'aasheedu waxa weeyaan Fadhiya Cabsiye mar kasta oo ay arrimaha ka hadlayso waxay samaysaa negativity fara badan baa ku badan ragga ayaabay si gaar ah u dhaleecaysaa raggay si gaar ah u eedaysaa waxaanu leenahay dariiqaasi ma yahay dariiq sax ah oo dumarka xaqa ka maqan ee Fadhiya noo sheegaysa lagu heli karayo in ragga la xagxagto mise dariiqooyin kale aad jira wad maasantay Fadhiya waxaan ka codsanayaa inuu hal su'aal inaad noo sheegto waa inaad takoorku dhinacyo badan buu ka yimaadaa markii كل دبدانا واد كتمي dadka naafada ah maxaa liga loo qoondeeyay sidaaba lagu talagalay maxaa loo soo hadal qaadi waayay maxaa iyagana stage loo keenay waayay mar qurada in loo casuumay ma ahayn waxa qaar ba wax bartay qaar ba jaamacada ka baxay waa in ma garanaysaa iyagana qorshe lagu darsado assalaamu calaykum assalaamu calaykum magacaygu waa Rooda Miisaan Fadhiya saaxiibadeed horta caawa lagu yaabaayo farxiinkii waa diyaar faraxiskii marka Allah ku badbaadsho insha Allah su-aashan anigu qabaa waxa weeyaan Fadxiyaay anoo kugu og inaanad cunsuriyad aanay jirkaaga ku jirin laakiin haddana anigu haddana Soomaaliyad ah buuganad qortay qofkii ugu horreysay u saxiixday waa aniga unfortunately maan akhriyin weli maan akhriyin su-aashaydu waxa weeyaan dhulkaynu ku noolahay ama qurbayaasha waxaad arkaysaa hooyooyinkii iyo aabbayaashii oo u caroosaya gabdhahoodii u caroosaya rag ma indhayara ama kala ah ayaynu xeeriyo u xidhnaa xeeriyo oo aynu diqnaa marka halka inanka Soomaaliga ana looga diidayo gabadhii walaashii ahayd ee muqmadda la garanaysay ee dhaqankiisa la garanaysay marka bal arrimaha Fadxiyaay buugga ma ku jira sorry laakiin sideedu aragtay inaanad cunsuriyad lahayn bini aadmiga oo dhan laakiin arrintaas sideed u aragtaa xagga ajaanibkana aan uga diiqno dadkeennii Soomaaliyeedna aynu takooro faalooyin iyo ducooyin iyo kala gacal bay ahaayeen kuwii hore laakiin su'aasha koobaad waxay ku bilaabmaysay buugta maxaanu ku sugnaa goorma imanayaan ayaa halkan laga weydiiyey
oo dadkii bugta ka dhammaadeen buu ka mid yahay akhristahaasi. waa tahay su'aalo badan oo muhiima ayaadna weydiisaan aadna waad ugu mahadsantihiin. buuggu wuxuu imanayaa adigu bisha 5teeda baa la yidhi ugu dambayn, adigu ilaa bisha 7deeda ayaa xaflad weyn ama 8deeda weli maanaan go'aabin aanu samaynayna haddii lahaydmo speakers oo Hargeysa ah haddii lahaydmo halkaasaad bugaagta ka heli doontaan insha Allah. bandhig weyn baa lagu qaban doonaa taasi waa taa buuggu waqtigaas u imanaya. Zainab waxay ka weydiisay intee buu kugu qaad buuggan aad baaritaankiisa samayso ama researchkiisa, maxaa caqabadee ka hor yimid, dhiirigelin ahaan maxaad u haysaa dadka doonaya inay wax qoraan? research bay tiri oo researchkan u baahanay maxay tahay? Soomaaliyeed baan hayo ilaa qiyaamihii baan dhegaysanayay oo maqlayay oo maaragtay dee waan runtii dhowr qof ayaan nasiib u yeeshay inaan la hadlo arrintaa kala hadlo oo walaalahayga gabooye ah, laakiin saan u doonayay dad aan arrintaa kala hadlo oo ka soo jeeda beelaha la haybsooco maan arag, noloshaydana dhowr qof un baan ka arkayba. taa lafteedu waxay ka mid tahay waxyaabaha igu dhaliyay inaan buuggan qoro iyo inaan arrintan aad uga hadlo, waayo waxaynu ognahay sidaan hore idinku sheegay, waxaan idinku yidhi buuggii saamaynta ugu weyn igu yeeshay waa buug la yidhaahdo The Human Stain, ama maxay noqonaysaa The Human Stain Soomaali? adaa iga waa taa turjumadeedii turjun Saynabe ya stain maana wasakh yahayn ama uska waa nacam the stain may waa markaad human tahay dee waa nacam the human stain waxa aan go'in waa fasaqa aan go'in maydhmin. marka the human stain wuxuu ka sheekaynaya haddaan soo gaabiyo nin Maraykana oo madow laakiin aabihii caddaan buu ahaa, caddaan iyo madow hooyadii waa la kufsaday, caddaan buu u ekaaday isagu. marka reerkoodii iyo dadkoodii wuu abbaanigariyo wuu ka baxsaday, wuxuu u noolaa inuu yahay nin cad oo adduunkoo oo dadkoo dhammi u yaqaaneen, famous professor ah, oo hadhowto ay arrintaasi ka daba imanayso oo gabdho madoowi ay ku eedaynayaan inuu yahay racist, inuu yahay cunsuri, iyaga si xun ama erayo xun ka yidhi, sidaana ku waayay shaqadiisii iyo noloshiisiiba. bal hadda eeg nacam intaasoo dhan wuxuu ku noolaa reerkoodii iyo dadkoodii oo dhan uu ka tegay. taasi waxay xusuusisay in badan, and I hope sidan idhaahdo in maaragtay aan laygaga xumaan, cid iiga xumaataana ay isaamaxdo, laakiin waxaan ognahay in dad badan oo walaalaheen ah oo gabooye ahi ay marmarka ku khasbanaadaan inay sheegtaan qabiil aanay ahayn just to survive, si ay u noolaadaan uun, oo weliba hadhowto laga daba yimaado ilaa iyo qurbihii laga daba yimaado oo la dhibo oo la yidhaahdo waa lagu soo ogaaday, oo hablihii qaar laga furo oo maaragtay. marka taasi waxay igu dhalisay markaa in waan raadiyey dhowr qof oo lay tilmaamay baan la hadlay oo iska dhigay inaanay ahayn gabooye. waana waxyaabaha aan barkhad aadka iyo aadka maaragtay ugu jeclahay, ugu hanweynahay, and how proud aad tahay, aad ku tahay qabiilkaaga, sharafta iyo milgada aad huwan tahay, because marka aad is og tahay in lagaa gardaran yahay oo aan waxba lagugu haysan, anu waxaan baa arkaa ilaahay inuu kuu hiilinayo, sharafta iyo milgada aad huwan tahay way kaa muuqanaysaa markaad proud tahay, waana taa maanta kaa muuqata, and I want to thank you. maaragtay marka way igu adkay dad badan inaan kala sheekaysto arrintan, laakiin waxaanuun iskaga socday indhaaday waa raasamaal ma maqli jirtay, dee wixii aan maqli jiray uun baan iskaga socday oo aan runtii research aad u badan fara badan maan samayn, laakiin adigaa ka mida dadkii caawiyey labadiinuba maaragtay buugga ila tafatiray. waxaan xusuustaa intaanu buugga soo bixin barkhad baa la soo hadlan ku yidhi
waxaan doonayaa bal waxyaabo badan baa jiro anigoo doonaya inaan xaqa iyo xuquuqda walaalahay maaragtay barbar istaago ayaa waxaa laga yaabaa anigu khalado badan inaan ka galaba iyagii anigoo maaragtay la hadlaya walaashay ama walaalkay gabooyo oo u hiilinaya waxaa laga yaabaa inaan qanjaruufto ilaa that's all I know waxa ma ogtahay marka waa lagama maarmaan waa ta muhiimka ka dhigaysa in dadka loo ogolaado inay iyagu their own story sheegaan sheekadooda sheegaan oo meel walba ay ka muuqdaan marka runtii research aad u fara badan maan samayn laakiin waa la caawiyey dad badan bay caawiyey oo ila tafatiray buug inagoo taa kusii soconayna ama mawduucaas ah cabdicasiis wuxuu ku weydiiyey su-aal u dhignayd raggoon baad 24 saac ku dhegan tahay fadxiya maxaa lagaa siiyaa ragga horta waxa la mahmaa baa jirto tiraada doqoni haddii la islaayo miyaa la yidhi in la kala guuray bay moodaama in la kala tegay wax saas mahmaha marmar waan khaldaaye iga raalli hada idinkay saxaya isu saxa marka waxaan ku bilaabay inaan heeso dhir hoosteed iyo webi iyo buur iyo marba meel yaroo saxan saxa la soo istaago aan sasabo aan kalgacal iyo jacayl iyo muxubbo iyo aan ka hadlo ayaan ku bilaabay hase yeeshee marba marka ka dambaysa waxaad moodaysay markaad istiraahdo waa laysu soo bedelayaa haddana waxyaabo fool xun oo argagax leh inaad arkaysid oo inta badanna waxaa samaynaya ay yihiin niman anigu rag odhan maaye waayo rag ma sameeyo dee waxyaabaha qaar waxaad maqlaysaa wariyayaal odhanaya rag afduuban ayaa soo weeraray gabdho ama rag baa nin raga oo la soo sheegay inuu gabadh kufsaday nin ragii wax ma kufsado nin ragii wax ma weeraro nin ragii wax ma dhaco ma garatay nin ragahi wax ma xaqiro xaashaa lilah nin ragahi waa hiiliye waa haliyey waa geesi waa sharaf iyo milgu huwan yahay nin ragii waa ka dadka u hiiliya ka laga gardaran yahay u hiiliya qofka jilicsan soo qabta baritaara marka waxa weeyaan waynu isku aad kelmadda absolutely gaf weyn baynu ka galnay marka anigu kuwan xagxagtaa ragga ma xagxagtee nimanka ragga ismooday baan xagxagtaa ma garatay ee beenta loo sheegay ee dumar Soomaaliyeed oo iyaga qudhoodu dee lagu soo ababiyey geesi baad dhashay haliyey baad korinaysaa boqol aad korinaysaa gabadha kontonka waajibkeeda mariyo inanka ha adeegto ha u shaqayso oo maaragtay yaa reer hebeladaa ka fiican ee inan gumeedka ha eegin kan ha waxayn been lagu soo gabigiisaba been lagu soo badhitaaray oo lagu soo ababiyey oo isu haysta inuu rag yahay that's not wax raganimo ay tahay wanaag iyo xumaanba bulsho inta ay u badan tahay haddaad dhanka xumaanta u badan tihiinna xumaantiinii baa muuqanaysa haddaad dhanka wanaagga u badan tihiinna wanaaggiinii baa muuqanaya waxay ahayd 10 cisho ka hor markii gabadh lagu dilay maxamed mooge area 3 cisho kadib dumarkii oo dhan baa isu soo baxay hal nin ishaydu may qaban oo mudaharaadkaa ka soo qayb galay why is that waxaa lagu odhanayaa allah dee raggu ma wada xumee fadxiya ragga bulsho bini aadan wada xumee dee ilahay maba abuurin laakiin haddii aad xaqdarrada ka aamusan tahay marka aad cuqubada iyo xaqdarrada aad ka aamusan tahay qofka ka aamusan isagaa ka xun ka sameeyey waxaa jirta markii waqtigii yuhuudda dalka jarmalka lagu marinayay nin katholiga ayaa wuxuu yidhi ayaa isagii baa loo yimi oo ay kaxaysteen oo dee sidii inuu u hiilinayay dadkii la leynayay waa la kaxaystay wuxuu yidhi markay yuhuudda u yimaadeen buu yidhi markay yuhuudda u yimaadeen markay maaragtay kuwaa u yimaadeen markay kuwaa u yimaadeen buu yidhi waan aamusay markay u yimaadeen raabaygii ninka imaamka u ah yuhuudda waan aamusay markay yuhuudda u yimaadeen waan aamusay markay dumarkii u yimaadeen waan aamusay markaan aniga finally ay ii yimaadeen cid ii hadasha oo maaragtay hadhayba ma jirin waa halkaynu ka nidhaahno ninkii khayrkii loo xiiray oo soo qoyso adiguna marka waxa weeye haddii gabdhaheennii ay sidaa aanay wadda dhulkoodii nabadgelyo ku mari karin oo inta la dafo oo la isugu tago maanta aynu arkayno maalin walba waxaad maqlaysaa kufsi
iyo dil waliba dilkiibaa haddeer dheer awal inta la kufsadaaba naftooda bal qaarkood loo dayn jiray oo qofkii victimka ahaa ee lagu gardarooday ee la boobay ee la dhacay xataa maaha macsi waxaad arkaysaa niman ku warwareegaya maya waxa weeyaan maaragtay maxay ahayd macsi maahayn maxay ahayd marka nin laba qof oo israbaa markay iswaxaystaan maxay ahayd waan laaway ya ha laba qof oo waxa weeyaan lama ogolo sharcigu waa in dil weeye maxaa dila waa runta maynu isu sheegno tii la boobay ee inta la boobay iyada miyaa waxba laguma samayn miyuu heesayay talow ya kaasaaba dila oo la hubaa in aynu ognahay sharcigu wuxuu ka yidhi marka haddaad ka aamusan tahay xaqa waxaad la mid tahay kuwa sameeyey iminkana badankiinu sida aad u badan tihiin inamada soomaaliyeed I love you laakiin xaqa waad ka aamusan tihiin isbeddelku idinku idinka go'a idinkaa gacanta ku haya wax walba gabdhuhu haddii ninku wanaagsan yaan waxaan qabaa gabadhi maba xumaataba wallaahi maba xumaato marka idinkaa isbeddelku idinka go'a idinka weeye kuwa wax xaqiraya yaa ee godobta intaa gelaya idinka weeye kuwa waa niman kuwa wax kufsanaya waa niman kuwa muxuu ahaa haybsooca kaalinta ugu hore dumarku waa iska marmarka qaarkood qaar waxaad arkaysaa aad sonisa dharbaaxal dhaco iska faala warisa laakiinse dhinaca aad marba u badataan baanu idinla badanaa ma garatay idinkay ahayd inaadna liidh garaysaan oo na hor kacdaan laakiin intaa dabadayada istaagteen oo waxaad doontaan samaysaan ayaa deetana iska aamusan oo tiraadaan weligeeday dhici jirtay dee gabadh waa la kufsan jiray waar waxaasi wax lagu hadlo ma aha wax bini aadan waynu ognahay waxa ninka raggaa looga baahan yahay rag sidaa ku noqon maysaan gabdhahan aad dayacaysaan eed iska guursanaysaan carruurtan aad dayacaysaan ee maalin walba loo dawarayo aad horta afar baa lay baneeyey adigoo sida lagugu baneeyey wallaahi baanan aamusayn halkaasaan ku joojinayaa for now dhiiggu yuu igu kicina iga daa fadxiyahay waxaan u malaynayaa inaanu dhiigba hadhin samaduu maraya labadeennaba keligaa ma aha cabdicasiisna su-aasha wuxuun bay ka ahayd dhiirigelin sidaan u fahmay laakiin si fudud oo kalena haddaan u dhigo su-aasha noocaasa marka la isweydiiyo maxaa ragga mar walba loo dhaliilaa waxaynu isweydiinaynaa bulshada yaa ka mas-uula bulshadeenna nimanka yaa masiirkeeda haya oo go-aankeeda gooya nimanka marka hadday wax khaldamaan nin raggii wax la weydiiyo la dhaliila ma khalad ma may waa intaasun marka in lala yaabo maaha in la dhaliilo ragga lamadan wada laha dabcan raggoo dhan baa noocaasa waayo aniguba kuwa kuma jiro waan dhex gashanaya xabadda aad baa mahadsantihiin su-aalo way noo socdaan walaalkeen halkan wuxuu kugu baraarujinayey bulshada qaybta aan laxaadkoodu dhammayska tirnayn laftooda wax qorshihii ma kaaga jira ama buuggan ma lagu dhex arkaya horta I don't know inaad ogtihiin waxaan bilaabay program la yidhaahdo Somali Women Global Network oo aan ku talagalay dumarka Soomaaliyeed inay isku kaashadaan oo ay cod ku yeeshaan codkaasi laakiin maadaama aanu anagu nahay hooyooyin iyo walaalo oo aanu nahay maaragtay xeerkii iyo xadhiggii ummadda isku hayay inaanu is urursano oo sanduuq samaysano oo aanu u helino qof kasta oo walaalkaya oo dhibaataysan oo maaragtay hadday tahay naafada hadday tahay qabiilada laga gardaran yahay hadday tahay dumarka waa project aan ugu maaragtay cadaaladda iyo maaragtay xaqa u hadla mana moogin walaalahay dadka naafada ah laakiin waxaan uga soo hormaray dee eeg dumarku qabiilay ka dhasheen at the end of the day qabiilay ka dhasheen inkastoo aanay qabiil loogu hiilin dumarku jaariyadun bay ka yihiin qabiilka moogtahay waa hawshuun baa nagu dhacdaa laakiin annaga markaanu dhibaataysanahay qabiilka waxba nooma taro ubadkayaga aanu wuxu tarin hadday qolo kale yihiin annagaanu noo hiilin marka dhibaatana loo geysto laakiin haddana durbaan bay u sidataa qabiilko waa number 1 iyadaa ka ah waa smoke ma garata laakiin sidaasoo ay tahay waxa weeyaan toodkii baa iga lumaya dadkaan laxaadkooda dhammaystirnayn heestiiba waxaan soo xusuustaa xasan aadan uu qaadi jiray oo odhan jiray
ma og tahay curyaankaba cagalooma waayine caynka kuwan caraarayeeladan inay ku cimri qaataan caashaqa habaaycin waxa weeyaan waxyaabaha xaqee aanu ka hadallo dhan baa ah cid walba oo laga gardaray oo lagu xadgudbo haddaad inan baa jirta youtuberada oo waxaa la yidhaahdaa alla muxuu ahaa amaal wadani miyay ahayd misaamiye wadani askariyad bay ahayd soomaaliya faisa miyay ahayd فايسة ودني أنا ما فايسة ودني بالي ما قاعدة وان كحماية فايسة ودني anyway إن أنت سمعنا دويد ويأويسي because dad baa u soo qoraya sidaad u farxi kartaa oo u qosli kartaa adiga oo curyaana sidaad halkaa u soo fadhiisan kartaa miyaad khajilaynin wallaahi waan ooyey oo bilaahi waan ooyey oo talaahi waan ooyey dadkaas iyay yihiin yaa dhalay xagge damiirkoodii mee diintoodii meeday carruuraheenna dumarow first and foremost inagaa dhalay waa runtooda rag badan baa niman badan baa koonaya dee idinkaa noo koriyey sidaa yaa kaloo hooyun baanu ag joognay ma annaga annagu aababa aragnay marka waa lagama maarmaan inaynu carruurteenna la hadallo oo inaynu ilaahay ka baqno oo inaynu uga sheekayno adigaba waa kugu dhici kartaa maanta masiibadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaa ku keenay anytime bay kugu dhici kartaa waxay ku odhanayaan oo ma isagoo curyaanu wax jeclaaday oo ma adigoo islaanaad wax jeclaatay oo ma adigoo waar isla yaaba bini aadamnimadiinni meeday isku xishooda waanu ognahay waan soo wadaa sheekooyin kale iyo bugaa kale waynuna wadaynaa laakiin maaha wax ku koobanun qabiil iyo qolo waa xaq darrada oo dhan baynu ka hadlaynaa isbeddelkuna wuu soo socdaa yaynaan degdegin it's coming insha allah inagoo kusii soconayna mawduucayna buugguna ku saabsan yahay qabiilada laga gardaran yahay roodo miisan waxayna weydiisay bulshada oo kale imaka hablaheena laga yaabaa in loo dhiso rag ajaaniba oo ay qurbaha si isu soo gaadheen midabku doona ha lahaado waliba qaarkood diintii doonana haystaan haddana dad inagii uun ah lagu takoorayo loo diidayo sidee la isu waafajinaya labada waa waxyaabahan dee la yaabay waa waxyaabahan dhacdo soomaalidu isma oga qofka bini aadanka ahay waxa lagama maarmaana inaynu fikirno waa inaynu fikirnaa maankeenna iyo qalbigeenna waa inaynu isu miisaanaa sideebay ku dhici kartaa nin baa maanta hadduu doono shaloo dhan buu khamri cabbayey shaloo dhan buu boork cunayey gabadh bay isjeclaadeen iyagoo wada socday hadduu doono wuxuu doono samaynayey hadday doonto waxay odhanaysaa iskaba dhee dee waxaad tidhahdaa reerkayga u kaalayo muslim baan ahay iska dheh ma isla markiiba shahaadada qabsun baa la odhanayaa halkii baa loogu meherinayaa gabadhi nin cadoo muslina baa guursaday nin madow oo wanaagsan oo waxa weeyaan mutacallin oo muslina baa guursaday waa smoog yaa kii la dhaqanka ahaa ee la diinta ahaa ee la afka ahaa ee heesihii isla fahmayeen ee ay afkii isla garanayeen ee u ekaa ee ay ahayd shimbirba shimbirkiisu la duulaana waxaa la odhanayaa alla ma ninka reer hebel maya waxa weeyaan waa dee waxay ku tusaysaa dadkeennu bulshadeennu marmarka qaarkood dadka sidaa u fikerayaa weli inaanay ahayn dad nool inaanay ahayn dad damiir leh qofka bini aadankaahi haddaanu habeenkii intuu seexdo aanu dib isu raacdaynin dib u raacdayn maalintiisii toddobaadkiisii bishiisii haddaanu dib isu raacdayn oo isu saxin wallaahi idinkaa laydin yaabaa marka aynu isku xishoonno marmarka qaarkood waxaa laygu yidhahdaa marka la yidhaahdo maya dee adiguba maad guursatid waa aniga in badan sidaa uga hadlaye ayaa waxaan dhahdaa waar guurku waa dooq wixii isjeclaada ee isbartaa iyagaa isguursanaya idinku ammaanka maa ugu dadaashaan waa the same su'aal jawaabta iyadna ii timaadee ah had iyo jeer dumarka xaq darrada ka maqaneed raadinaysaa maxay tahay soo ilaahay ma siinin subxaana wa tacaala ilaahay baaba xaqoodii u dhammaystiraye bareer galbeedkan baad annaga hadeerto ay wax noogu kaa soo dhiibay dee waxaan dhahdaa xaqayagii xuquuqdayadii cid walboo laga gardaran yahay kuwiina dhex taaganow naga dhex baxa annagii ilaahay isu kaaya daayo naga baydha idinkaana kala dhex taagane xaqaanu dacwo uma haysano ilaahay diintayada dacwo uma haysano idinkaanu dacwada idin haysanaa markaa naga dhex baxa oo dadka isjecel isu daaya oo xishoodoo ilaahay ka baqa
su-aashii u dambaysay ee layna weydiiyey waxay ahayd nin halkaas soo fadhiya oon magaciisii iloobay ayaa waxaa weyn badan ka fikiray waxaan baase romantiga la idhaa waxa uu yahay soo adamaydaan garan qaar baa u haysta romantiga inuu ubax casool isu geeyo ay tahay anuu jawaab baan u hayaa laakiin ma siinayo waayo adigii su-aasha kugu socotaa romantic waa maxay fadxiyay romance oo maxaa tahay romance oo maxaa tahay romanceku waxa weeye yaa oo inagu horta maxaasaa waynu odhan jirnay yaa maxaasaa buu ahaa maxay odhan jirtay heestii magaceedii maxay odhan jirtay heesta hadii jeer maqaane siyar ma u shashabinaa miyay ahayd dee romanceku waxa weeye horta waa de laba qof oo aan horta physically iska helin markay muuqaal ahaan is arkaan bini aadan baynu nahoo dhalanteedku waa aad buu muhiim inoogu yahay haddaynaan dee physically iska helin si kastoo maskaxdaadu u qurux badan tahay iyo dadnimadaadu dee gaadhiba maayo waayo dee marka hore waa in physicalkaagu isoo jiitaa moogtaa marka dadku waa laba oo qaarna sidii aan hore u sheegay dee qaabkoodii iyo quruxdoodaa kusoo jiidanaysa hadhow markaad u dhaadhacdana waxaad arkaysaa qofkii inuu qof maran yahay laakiin qofkii haddii aad markaad isu dhaadhacdaan aad iska heshaan oo aad aragtid inaad isku meel u socotaan jacaylku sidiisaba waa jaranjarooyin kala duwan inagu romanska iyo jacaylkeennu 3 bilood ma dhaafo inta badan ma wada lihin kulligeen laakiin sidaa uu badan yahay sida aynu u badan nahay romansku kama soo hadho ixtiraam marka labadii qof iska helaan ee ay dhaafaan dhalanteedkii yaraa ee ay maaragtay maskaxiyan iyo qalbiyanba ay waa isfahanka romansku waa isfahanka labada qof hadday isfahmaan oo ay isku meel ku socdaan oo qofba qofka kale uu arko wallaahi qofkan waan jeclahay agjoogiisa wallaahi qofkan waan jeclahay maaragtay la hadalkiisa wallaahi qofkan waxaan jeclahay inaan noloshayda inta ka hadhsan la qaybsado oo aad ka dhex aragto mustaqbalkaaga nin ruumi la yidhaahdaa wuxuu odhan jiray waxaa ka mid a odhaahihiisa alla yarxamo baa waxaa ka mid a odhaahihiisa nacam kulligeen waddadan nolosha waynu wada maraynaa laakiin qofna loo mari maayo marka waa lagama maarmaan inaad hesho qofkii aad waddadan nolosha ee gaaban aad la mari lahayd romansku waxa weeyaan qofka aad og tahay talow haddaan dhaco may qabanaya yaa talow hurmada ugu dambaysa haddaanu bariis wadaagno aniga afka may gelinaya mise wuu iga cantuugi yaa waa adigu waxaasoo yaryaroo laysu geegeeyey qofka aad og tahay inaanad ka maarmaynin kama maarmo qofkaa kama maarmo waa intaasuu waxaa kale way iska dhammaadaan dee meelaha yaryaree quruxda badan ee la tago gacanta yaree la isqabsado xiisaha yaryare wuu iska dhammaadaa laakiin is-agjooga iyo is-ogolaanshaha iyo nin Paul McCartney la odhan jiray oo Beatleska ku jiri jiray baa gabadh bay isjeclaadeen marka xaaskiisii ugu horreysay markaasaa asxaabtiisii weyday intii hore oo dhan iyaduna photographer bay ahayd markaasay yaabeen dee ninkiiba way waayeen practice bay markiiba wuu cararaa moogtay markaasay ku yidhahdeen wareedhe tanaad intaa kusii maqan tahay dee groupies badan dumar badan baa intaa meesha joogay oo nimankan raadinaya isagu markiiba gabadhaasunbuu ogolaaday markaasuu wuxuu yidhi markay weydiiyeenba wuxuu yidhi allah agjooggeedaan jeclahay buu yidhi agjooggeedaan jeclahay marka hadday ii noqoto inaan kala doorto agjooggiina iyo agjooggeeda iyadaan agjooggeeda doorta marka waxay yidhahdeen dee waa yahay labadayadaba agjoogoo soo kaxee sidii buu gabadhii ku guursaday markii dambe way ka dhimatay inagu laakiin waxaad arkaysaa ninkii ninunbuu doonaya inuu agjoogo waaba sii maqan yahayba wax yar xiisihii markuu dhammaado marka romansku waa ogolaanshaha iyo agjoogga iyo isfahanka iyo lamaananimada ma aha dhowrkii sanaba inaad lamaano cusub raadisid saddexayso iyo afarayso iyo shanayso waa hagaag haddaan intaa soo koobana waxaan odhan lahaa in qofku wuxuu romantic noqdaa markuu qofkiisa la dareen noqdo soo midaan maqlin hebel waa nin bulshadiisa la dareena qofkaagood la dareen noqoto weeyaan inaad romantic noqotaa ya oo waxa uu jecel yahay iyo waxa uu doonayo iyo sidii uu doonayo wixii u dana markuu kula ogol yahay sidii uu kula ogol yahay aad u samayso waa intaasun waa hagaag waynu ka baxaynaa laakiin qodob muhiima baan dib u dhiganayay baa jirta inta aanan cuudka u yeedhin buuggan waad iibin doontaa ama waad iibinaysa intii horeba kharashka ka soo baxa maxaad ka damacsan tahay fadxiyaay buuggan dhegaysano
as dhegaysana fadlan buuggan waxaan ugu talagalay wixii ka soo baxa horta organizationkan aanu sameynay Somali Women Global Network waxaanu ugu talagalay oonu markii hore bilownay inaanu ururino scholarship fund aanu ugu talagalay at least 50% gabdhaha gabooye iyo koonfurtana gabdhaha jareerta inaanu jaamacada kaga bixino kadibna buuggani markuu yimi waxaan go'aan ku gaadhay inaan wixii proceeds ka soo baxa waanan ogahay inay ka soo baxayaan iyo dee wixii kale ee maaragtay iyo cid kastoo nagala qayb qaadanaysa inaan daami waxaan jeclahay ka sameeyo library haddii lahaydmo insha allah biidnillahi kariim laakiin library keliyana aan ahayna dee dhallinyaraduna meel ay isugu timaado oo gabayadii lagu soo bandhigo tartalmo gabayada waxa beri baan mid baanu murmaynay oo markaasaan idhi haddii qabiilada islaynaya ay la odhan lahaa ha legdameen nimanka mid walba sidii berigii hore ay samayn jireen ma garanaysaa labada nin ugu geesisanay ay samayn jireen waqtigii dee ma garanay Greekskii iyo markii ay Turkiska iyo dagaalamayeen ay labada nin ugu geesisan isugu soo saari jireen ee hadhowto markaa la isdhexgali jiray haddii kaaga laga adkaado deetana micnaheedu waa groupkaagii waa loos gareeyay iska tag marka waxa la gaadhay waqtigii lagu tartami lahaa farsamo waqtigii lagu tartami lahaa garasho waqtigii lagu tartami lahaa haybad iyo qurux iyo wax walba laga gudbi lahaa reer hebel baana reer xamarka waxay yiraahdaan aabahay baa dameer lahaa aabahay baa geel lahaa anaa dameer laba ka roon marka waxaan ugu talagalay inay dhalinyaradu ku tartanto farshaxanimada ku tartamaan insha Allah ay ku tartamaan gabayada ay ku tartamaan maaragtay de waxyaabo badan oo dhalinyaradu xiisayso storytelling filmmaking marka insha Allah biidnillahi kariim si dhalinyaradu isu dhex gasho waayo dadku markay is dhex galaan waxyaabo badan oo khiyaali oo aynu rumaysanahay ayaa meesha ka baxaya qoraagii caanka ahaa ee Nigerianada ahayd ma karo magaceeda ganaayisaxa jamamira naguche ma karo magaceeda aad baan ugu carab lahay ayaa waxay tiri sheekadeedii ay TED Talks ka sheegtay baa waxay tiraahdaa waxaan la yiraahdo stereotyping was the most popular TED Talk ever in the history of TED Talks imika jaamacadaha lagu dhigaa marka waxay ka hadashaa waxa la yiraahdaa the danger of the single story ya khatarta ay leedahay sheekada kaliya ee u baxda ummad ya boqor Axmed baan ka wareysanayay waxyaabaha sida midgaan oo kale sida loo bedelay haybada ilhaan jirtay midigayn oo kale de midigay isu tagay gamcay isu tagay oo iskaashaday sida loo xumeeyay marka wuxuu yiri igu qasliyo wuxuu yiri de anigu hadeer markay dadka qaar baa mid baa agtayda isagoo taagan buu mid kale oonaya arba halkan midgaanka markaasuu mid kale oonaya Allah de Axmed boqorow naga raaliho markaasaan dhadaba yiri oo maxaad aniga igu oran adiga ah oo de qaatay adaan ku daayay ilaa adaa xumeeyay marka waxyaabaha ay ka hadashay TED Talk waxa weeye marka sheeko kaliya ummad u baxdo ee la iska dhaadhiciyo inay dadka ama reerka ama qofka the others marka the others laga dhigay la fogeeyo in ay dadku noqdaan sheekada kaliya micnaheedu maaha inaanay ahayn waxa laga yaabaa in la yiraahdo reerkaasi waxaas iyo waxaas sameeyaa way sameeyaan de sida dadka kaleba u sameeyaan laakiin dadkaasi ma intaasoo kaliya mise inteeyo sheeko ayay leeyihiin marka waxa lagama maarmaana dadku markay isdhex galaan waxa khuraafaadka iyo khiyaaligaas oo dhan ayaa meeshii ka baxaya deetana dadku waxay noqonaysaa inay walaaloobaan oo bini'aadamnimadooda iyo duntooda ay isbartaan oo ay sarkaan waana sidaan isleeyahay muhiimadda loogu baahan yahay in la helo center waliba loogu tago xaafadda daami ay dadku meelahan uga tagaan deegaanada kale u tagaan insha Allah waxaanan runtii ka codsanayaa inaan lagu sii daynin fadxiyo kaliya lagala qayb qaato waayo waa hawl inoo wada taala dhammaanteena ma aha mid lagu eegayo fadxiye iyo mahadho kaliya taasi waa taa fadxiyay caawa markay noo ka dhimanaynay waxaad igu lahayd 40 daqiiqo qiyaastii aynu ku soo koobi doonaa saacad iyo badh oh my god soo maad garan waxaa kaloo noogahay in aydaan weli dadka kale bogano barnaamij kalena aad u qaban doonto magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba marka caawa kaliya kuma koobnay insha Allah dibna waa soo arki doontaan waxaan kaaga mahadnaqayaa inaad halkan dadkaaga hor timaado la sheekaysato
caawa dhan waad wada joogtaan marka uu inoo dhammaado barnaamijka xiga haddii ee baydmo fadxiya aan ku fasaxaya adiga aad iyo aad baad mahadsan tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay ismaaciilow kaaga mahad celinayaa sida aad igala shaqaysay buugga allah ku barakeeyo aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin canaantaydan raalli ka ahaada waan yaro kululahaye ya laakiin wanaagun baan uga jeedaa iyo inaynu ismuxubaysanno isjeclaanno isu hiilinno isquruxsanno khayr iyo barwaaqaan idinku oga